helay kitaabka maktabadda muxuu ka hadlayaa? wiilkaygiiyow kani waa kitaab qurux badan oo cilmi badan koobay waxaana magaciisa la dhahaa Riyaadus-Saalixiin waxaana ku jira axaadiis aad u tiro badan oo laga wariyay rasuulkeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Haddaba yaa qoray kitaabkan hooyo? waxaa qoray wiilkaygiiyow Imaam an-Nawawi magaciisa runta ahna waxa uu ahaa Yaxya ibnu Sharaf an-Nawawi. hooyo magaciisa waxaad moodaa inuu yahay qariib maxaa loogu magac bixiyey? Nug leerku ka shaqayn jiray oo loogu magac daray? May Xasaan waxaa loogu magac daray deegaankii uu ku dhashay oo la oran jiray Nawa oo ku taalay Suuriya. Gartay, haddaba ma iga sheekayn kartaa hooyo? wiilkaygiiyow kaale oo soo fariisa halkan. Imaam an-Nawawi waxa uu dhashay sanadkii 631 hijriyadii isagoo aad u yar ayaa waxa uu noqday mid ka soocan carruurta uu la filka ahaa. waxayna mar walba oran jireen kaale oo nala ciyaar laakiin uu diidi jiray mana uu jeclayn inuu ciyaaro. wuxuuna bilaabay waxbarashada isagoo aad u yar waxa uuna u safray magaalada Dimashq si uu cilmigiisa u sii dhamaystirto. Kadib maxaa dhacay hooyo? Imaam an-Nawawi waxa uu ahaa wiil aad u dadaal badan oo dadkii oo dhan ka yaabiyey. maalin iyo habeen ma uusan nasan jirin, ma cuni jirin, ma cabbi jirin, mana seexan jirin oo waqtigiisa oo dhan hadba sheekh ayuu u tegi jiray si uu uga soo kororsado cilmi. Ma nasan jirin, ma cuni jirin, ma cabbi jirin, sidee suurtagal ku tahay hooyo? taas waxaa ka daran habeen iyo maalin wax ayuu baran jiray 2 sanana dhinaciisa dhulka ma dhigin, sariirna kuma seexan marka laga reebo in uu kursiga korkiisa ku lulmoodo oo kitaabka wejiga saarto wax yarna uu ku gamo. Cajiib, sheekadan aad ayaan uga helay. Ilaahay baa dadka u soo saaray Imaam an-Nawawi si uu ugu soo gudbiyo cilmiga iyo kutubada uu qoray ummadda oo idil waxa uuna u qoray qaab aad u sahlan oo la fahmi karo kitaabadiisana jiilba jiil ayuu ka dhaxlay. Sidee ugu fududaatay arrinkaas? run ahaantii Xasaan Imaam an-Nawawi waxa uu u go'ay cilmiga oo kaliya isagana wehel u ahaa waxa uuna iska iloobay adduunyada oo idil xitaa cunidii iyo cabidii ilaa laga gaarayo habeenkii saqdiisa dhexe. kitaabka Riyaadus-Saalixiinka bes ayuu qoray mise kitaabo kale ayaa jira? wiilkaygiiyow Imaam an-Nawawi waxa uu bilaabay inuu kitaabada qoro isagoo 30 jir ah. waxa uuna qoray axaadiis, fiqi, tawxiid, luqad iyo kuwo kale oo badan. waxa uuna u qoray qaab aad u fudud laakiin kitaabka Riyaadus-Saalixiinka, kitaabka Arbiciinka, kitaabka Adkaarta ayaa ah 3 kitaab ee ugu caansan ee uu qoray Imaam an-Nawawi. hooyo ma wuxuu noolaa in ka badan 80 sano? maya, wuxuu noolaa 45 sano oo kaliya. wuxuuna dhintay 25 Rajab 676 hijriyadii waxaana u baroortay oo aad ugu murugooday magaalada Dimashq dadkii ku noolaa oo idil waxaana lagu duugay tuuladii uu ku dhashay ee Nawa. Allah u naxariisto isaga iyo culimadii muslimiinta oo idil.